بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقاس عبد الرشيد وقاس روبلة وقاس دودي وقاس روبلة وقاس نور وقاس كي سقالية طبناد يبيلها قد بورسي وحن هل كان كشيء يد عددي maalintii 7 bishan August maalintii khamiistii qabsatay halkan waxaan ka baxnay 8 iyo barkii subaxnimo jigjiga waxaan ku sii soconay dadkeygii bulshadeedii baan ku socday sidii caadiga ahaydba horaba dadkeyga ugu tagi jiray ayaan safarkaas galay iyadoo 3 odayna aan horaba u diray oo aan si xaqiijiyeen inay nabadgeliyo dulku yahay oo bada saafkii ay la kulmeen meerkii la kulmeen shacabkiina ay wargelin siiyeen inaan imaanayo iyadoo jawiga aan ku socday warbixintii markay ii keeneen aan halka ka baxay kadib markaan qoryo cawl gaadhnay ay arintii isbedeshay xabaar waxaan gaadhnay 12 iyo barkii baan qoryo cawl gaadhay halkaas waxaan ugu tagay waxaan aqligu geli karin oo dhibaato ciidan jidgooye ah ayaa meesha kula kulmay oo inayna dilaan aniga iyo shacabkii la socday ay laayaan ugu tala galeen ayaan meeshaasi kula kulmay kadib markii aan halkii xarigii soo istaagnay ayaa rasaastiina lagu bilaabay nooc walba de cadow dad يعني بالآدمي humanitarian ka iyo cid walba waxaan u sheegayaa iyo dawladaha jaarka dhacdada meesha ka dhacday dilka ahayd in la dilo oo shacabkaygii la laayo oo marxaati ah in dadkii dhaawacyadoodii dhakhtarka boorama ay joogaan ayaaliin ilaahay waxaan uga baryaa inuu caafimaad siiyo ujeedada ugu weyn halka u tageynina ahayd in dadkeedii aan la fadhiisto aan sidii horeba aan la tashan jiray oo la wada fadhiisano haday khilaaf jiro kii xalin lahaa marjici u dambeeyay waa aniga wax kale oo dhibaato aan anagu u soconay ma jirin aan nabadgeliyada jawiga nabadgeliyada ku soconon bay hayd laakiin xaaladii wax isbedel weyn baan yaa meeshii ka dhacay waxa weeye markaa waxaan dad maanta waxa bilaabantay waji cusub oo xaalad cusub baa bilaabantay waxaan arkayaa in ay jabhadi meesha nagu sugaysay iyo RRU iyo ciidamo fara badan meesha nagu sugayeen taas baa meesha taala shacabkii iyo dhaqankii wixii meesha joogay haba yaraatee wax loo aaba yeelay ma jirto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada gaarka ah ee dawlad deegaankeena Soomaalida oo halka iyagu xabadii iska kaya dhigay oo uga soo hortaabaan dhimanayna lahaa runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida ay noo badbaadiyeen aniga shacabkiiba waxa marka halka aan leeyahay shacabkayga wax loo ogol yahay ma jirto cabashooyinkaasi way soo socdeen muddo badan maanta se waxa weeye waa jabhad hubaysan ayuun baa dadkaygii haysata oo shacabkaygii maanta ilaa hadda 3 maalmood baa rasaas ayaa lala dhacaya salaadiintii ma hadli karto aqoonyahankii ma hadli karaan waa jabhadaasaan haysata taariikhdii hore aan jabhaduun reero la yaalun balaha waxa weeye marka waxaan leeyahay waa balan arinta tashi guud inaan ka yeelano qurbajoog haday tahay qolqoljoog haday tahay in la isku yimaado oo la wada tashado oo jidgooyadaasi laga tashado iyo jabhada hubaysan in laga tashado oo fadhi kale loo aan wada yeelano ayaan ku baaqayaa gumaysiga iyo dulmiga iyo tacadigaana laguma sii jiri karo ummadda la xasuuqayo laguma sii jiri karo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba way arkaysaa in dulmiga socda inaad aragtaan oo anigiiba maanta ay qabsatay waxaan leeyahay dawladaha jaarka
iyo human right-ka inay soo arrintaasi degdega loo howlgalo oo jabhadda hubaysanna laga qabto. annagana way noo taallaa sidii shacabkayga aanan xoog loogu haysan karin inay shacabkaygu ogaadaan oo wax meeshaasi noo yaallaa inaynay jirin, waxaba yaraatee maamul iyo dowlad lagu tilmaamaana aynay jirin, qabiil u amar kurtaaglaynayo un meesha u yaallo. taasna waa laga bixi insha allah, dadaalkeedana waan ku jirnaa, adduunyadoo dhanna waanu gaadhsiinaynaa. sharafta iyo karaamadan dhowraynay intaasoo dhan waan ka aamusnayn, waxa qaladka dhacayo oo dhan waanu arkaynay. xaqu dirar inaan nahayna cid waliba way og tahay. maantana hawshaa socota waa waxaan laysku saamaxayn, dadkayguna inay intaa ogaadaan ayaan doonayaa, oo meel walba ka kacaan, oo dulmiga ummadeennii iyo rafaadkaa haysta inaan iska dhicinno oo aan meel uga soo wada jeesano ayaan ugu baaqayaa ummadaydii. inta kalena gadaal baan iniga sheegi doonaa, waad mahadsantihiin. odayadaydii aan diray oo iyagu golxaadhka maasha u tagay markii hore waad wareysanaysaan, waa kuwani la fadhiya in wax waliba caadi ay ahaayeen oon si nabadgelyo ah ku soconnay iyay nii sheegayaan. khilaafkaasina goor wuxuu isbedelay ma garanayo, waana ila joogaan.